dhankan Soomaaliyana waxa ciidanka waxa weeye lagu seexday waa xooga gaarka ayaan oran karaa magacayga hoos dhaxan waxa la yiraahdaa Deeq Cumar Cabdi taliyaha brigade-ka koowaad waa Naasaaj waxaan soo maray mustaxiil waxaan ku xigsiinay Dunduban Qaris waxaan ku xigsiinay Saddex Baar waxaan ku xigsiinay Ceel Barde waxaan ku xigsiinay hadda aan ku suganahay Washaaqo caataan soo maray Washaaqo ku suganahay hadda inta haddii aan wareer ka bixiyo nidaamada waxa weeye shacabka ama bulshada aan la kulmaynay waxaan soo sameynay isku xiriyo waxa weeye gudiyo amni oo waxa weeye iskaashi ah gudiyo waxa weeye ka kooban xagga Soomaaliya ka yimid iyo waxa weeye gudiyo maamulka iyo ciidanka ah oo waxa weeye dhanka dawladda deegaanka isku dhafkaashi iskaashi oo waxa weeye abaaraha iyo nidaamka waxa weeye colaadda ee waxa weeye dhankan ka jirta sida cadawga al-shabaab oo kale iskaashiyadaasaan soo sameynay waan ku guuleysanay ma oran karaa ta kale in badan waxa weeye shacabka waxaad arkayseen dhankan Soomaaliya ka soo yaacay ee noo imanaya ee xagga ciidanka u soo talaabaya taana waxa kalifaan oran karaa xagga waxa weeye ka warhaynta ama waxa weeye fidinta nidaamka waqtiyaasha lagu jiro waqti abaar ah oo aad u adag sida waxa weeye booyada ciidanka oo kale waxay u dhaamsaa shacabka daanta waxa weeye ka soo jeeda waa shacabka yagii labada shacabna waa isku mid in loo dhaamiyaa waxa weeye way mudan yihiin wixii kale waxa weeye lagu gargaari karo taasaa kaliftay inay waxa weeye shacabku ay soo talaabaan ama ay ku soo horitaan ciidanka oo sida aad arkayseen oo kale ta kale amniga cadawga ka dhaqdhaqaaqa dawladda waxa weeye dariskana Soomaaliya waxa weeye wali dawlad hana qaaday maaha sida la adligeed dhankan Soomaaliyana waxa ciidanka waxa weeye lagu seexday waa xooga gaarka ayaan oran karaa marka waxa weeye socdaalkii halkan Washaaqo ayuu insha Allah hadda ku joogaa